isku soo laabasho wanaagsan mar kale qiyaarta inala socota qaybihii hore ee barnaamijka hargalka ayaa la jaan qaadaysaan magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaana lagu soo waramayaa in dad rayid ay wax ku noqdeen qaraxaasi ayaa lala beegsaday bar ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda oo ay ammaanka ka xaqiijinayeen goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa la sheegay dhaqdhaqaaqa dadkii ay gaadiidkaba inuu si weyn ugu badnaa haddaba waxaa ka warramay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay sheegeen in 3 ruux qaraxaasi ay ku dhinteen dil kaaraysa 6 kalena ay ku dhaawacmeen laakiin ila madax bannaan oo RTN ay la hadashay waxay tilmaamayaan in qaraxa dhibaatada uu geystay intaasi ay ka badan tahay marka la eego xogaha laga helayo caafimaadka Muqdisho iyo sidoo kale qaar kamid ah goobjoogayaasha halkaas ku sugnaaba haddaba xogtii ugu dambeysay waxaa isku soo duway oo goobtaasi gaaray wariyaha telefishinka RTN Hajar Cabdulqaadir Nuur abaaro sagaalkii iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo ay halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan tirada inta dhimatay hadda la haayo waa ilaa 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waxay ahaayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeenin ruux shacaba iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee baneystay caadeystay inay shacabka dhibaataysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ah waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo هذا ما هذا gaariga waxa sheegtay in wax lagu soo dhajiyay yaa laha gaariga runtii gaariga ilaa hadda qofka lahaa lama cadeynin baaritaan ayaa socda sababaha laamaha ammaanka ay u xaqiijiyeen in wax lagu soo dhajiyana waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta wax ka dhacay dhulkii waxba muusan gaarin gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxira waxa caado ah in markii uu qarxo dhulkii wax gaaro saameyntiisuna intaan uu ka sii balaarto marka saameyntu uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeediin waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen laamaha ammaanka waxay xaqiijiyeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay aad ay umaasay mas'uuliin dowladda qarsan oo guuriyay ma jirto ilaa waa idin sheegay khasaaraha inta dhimatay waa 3 qofood inta dhaawacna waa ilaa 6 qofood sida afayeenka gobolka Banaadir uu sheegay qarax gaari waxyaabaha lagu soo dhajiyay ayaa ku qarxay control lagu baaro gaadiidka ku yaala isgoyska sayidka afayeenka waxa uu sheegay in 6 qofood ay ku dhaawacmeen 3 qofoodna ay ku geeriyoodeen warar kale aan helnay waxay sheegayeen in gaari uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay isla markaana ninkii sitay uu ka cararay waxaan loo sheegay dadka geeriyooday inay kamid ahaayeen sargaal ka tirsan nabad sugidda iyo agaasimo waxay ka tirsan wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka wili ma cadda tirada guud kooxda gurmadka ambulance laanqarta cas iyo amiin ambulance waxay noo sheegay inaysan heli karin maadaama cadaadis kala kulmayaan laamaha amniga laakiin ay sheegi doonaan tirada guud ee halkan ka qaadeen wixii faahfaahin waxa kala socon doontaan RTN TV أدبض ما سنتهي هاجر عبد القادر نور قرحني waxa uu noqonayaa kii labaad ee muddo 12 maalida ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho isla markaana waxyeello u geysta dadka rayidka ee ku sugan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho haddaba waxa qaraxaasi durbaba sheegtay kooxda al-shabaab oo si weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya
qoraal lagu baahiyay Twitter-ka oo iyaga laga soo xigtay ayaa waxa uu tilmaamay in kooxda al-shabaab ay sheegtay qaraxaasi inay la beegsatay goob laga ilaaliyo ammaanka magaalada Muqdisho waxaana uu noqonayaa in saacado kadib kooxdaasi ay qaraxa sheegato ka dhacay magaalada Muqdisho. sidoo kale marka laga yimaado ururka al-shabaab qaraxaasi inay sheegteen waxa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada sirdoonka ee Soomaaliya NISA ayaa qoraal aad moodo in uu kula hadlayo NISA soo qoray waxaana uu yiri Twitter-ka xafiiska taliyaha NISA ha inoo sheego qaraxa sayidka cidda ka dambeysay inta aan shabaab sheegan. ujeedadan ayaa waxay noqonaysaa ama qoraalkan mid ku aadan qaraxii 28 December ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan X Control Afgooye waxaa ku dhintay dad fara badan waxaana sirdoonka qaranka Soomaaliya ay sheegeen in uu ka dambeeyo dal shisheeye oo qaraxaasi soo maleegay. hase yeeshee mas'uuliyiin uu ka mid yahay Axmed Macalin Fiqi oo mucaarad ah kana soo horjeeda aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in talaabada iyo hanaanka sirdoonka qaranka Soomaaliya oo warbixintaasi u faahfaahiyay isla markaana xogta uu bixiyo aanay ahayn mid iyagu ay ku qanci kareen marka loo eego sida wax loo dhigay ayuu hore u sheegay. hase yeeshee qaraxan ayaa waxa uu qoraalkan uu soo dhigay ay muujinaysaa in hadda mar kale NISA uu eedayn kale u jeedinayo. hase yeeshee ilaa hadda kama aanay jawaabin hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho iyo ciddii ka dambeysay marka laga reebo in al-shabaab saacado kadib qaraxaasi ay sheegteen.